in xuquuqdiis laga jaro yuu caddaynaya qof gaare looguma talagelin sida hoogayaha sheegay xildhibaanada soo fadhiistay saakay soo xaadiray 113 xildhibaan weeye sidaa daraaddeed kooramka waa yaryahay waxaan rabaa in maaragtay arrimahaas dhacdadan runtii waa nagu soo noqotay xildhibaano badan oo aad u dadaalahayo waajibaadkii dastuuriga ah ummaddu eematay maalin kasta u fadhiyo oo u taagan waa jiraan laakiin waxaa maaragtay aad iyo aad ugu xumahay in maaragtay xildhibaanada qaar ayagoo magaalada joog iyo ayagoo nidaam la'aan iskaga maqanba howlahoodii maaragtay runtii aad u gabayaan oo wixii laga rabay aan samaynaynin arrintaas waxay nagu tahay dhammaanteen dhaawac ayay nagu tahay ummadda Soomaaliyeed waxay fiirsanaysaa golihii hawshiisa ma wata wixii loo admidii ma wada ama ma wada waay walaalayaal waa dadaalay runtii golaha shacabka waa dadaaleen guud ahaan baarlamaanka labadiis aqal waa dadaaleen laakiin muddadan xildhibaanada waxaa ka muuqda cajiis iyo yacni hoogaha gaabis aad u badan ka muuqda arrimahaas markaan xisaabtanay anu ka guddoon ahaan waxaa noo soo baxday xildhibaanada keliyooda aad lahayn oo anaga aad wax ku leenahay sababtoo ah waxaa fulin weynay waajibaadkii dastuuriga oo golaha ku heshiyeen shuruucdii u taalay inaan ka gaabinay bani aadan sidiisii asiga oo darjo kasta iyo maaragtay da' kasta iyo aqoon kasta asigoo leh haddana wuxuu u baahan yahay sharci ku kala dambeeya oo ku dhaqmo inuu helo waxay noqonaysaa dadka yacni isxilqaanka meel buu ku ekaanayaa dad badan muddi marka la socdo isxilqaanka waa iskaga harayaan haddaan la taabsanin sharci uu maaragtay samaystay oo inuu ku dhaqmo uga heshiy haddii meel la iska dhigo oo la yaraysto dadka shaqadooda inay gabaan yaa soo baxaysa xildhibaanada sharafta leh runtii waa ogahay xildhibaanada qaar dadaalka ay dadaalayaan yacni subax kasta waqti ay soo fadhiisanayaan 3 saac noo qoranayd 3 saac waa la iskala tagay hadda waxaa caadi noo noqotay 5 saac in la gaaro ayadoo xildhibaan la sugahayo marka arrintaas marana waxaan isku daynay si maaragtay xildhibaanada looga xishoodsiiyo in magacyadooda la yeeriyo oo maaragtay yacni isxilqaamaan oo ay arrintaas ka xishoodaan waa isku daynay haddana waad u jeedin waxaan u malaynayaa biyaajidii saddexaad marka inay noqonayso maanta maaragtay oo kooram la'aan inuu shirkeen u baaqdo oo muddo kooban ah marka maadaama sidaas tahay waxaan rabaa xildhibaanada sharafta leh inaan u sheego anigu oo runtii magaca guddoonka ku hadlayno waajibaadkana saaran xeerkana na farahayo inaan ilaalino dastuurka iyo xeer hoosaadka inaan ilaalinana waajibaadka anigu yahay waxaan rabaa xildhibaanada inaan xasuusiyo xeer hoosaadkan wuxuu qorayaa qodobka 23aad farqadiisa 16aad waxay leedahay xildhibaanka waajibkiis gudan waayo oo maqnaansho maaragtay markasta xilkiis la gudan waayo jidka maaragtay u banaan in maaragtay golaha ay mariyaan in xuquuqdiis laga jaro yuu caddaynaya qof gaare looguma talagelin waxaa loogu talagalay qofkii waajibaadkiis gudan waayo magacu yeeriska xildhibaanadii haddana waa ku imaan waayeen marka xildhibaanada sharafta leh maanta waxaan digniin kama dambaysa ka bixinayno maanta maadaama shirka kooram la'aan u baaqday daraan u baaqday yani dadka lama canaanin karo waa mudana sharaftiisa inuu ilaashado waajibaadkiisa inuu guto maaragtay isxilqaama laga rabay haddii taas noqon weyso sharciga lagu kala dambeeyo yaan anagu dabaqayna hadduu ilaahay yidhaahdo waana markii hore heer hoosaadka qof gaara looma samaynin waxaa loo sameeyey qofkii gudin waayo waajibaadkiisa loo sameeyey marka walaalayaal xildhibaanada sharafta leh waxaan leenahay maanta ugu baaqaynaa